xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay looguna duceynayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ka qabsoontay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay kumanaan shacab Soomaaliya kuwaasoo isugu jira waxgarad, aqoon-yahano, siyaasiyiin, culimaawidiin, dhalinyaro, qaybaha jaaliyadda. sidoo kale xafladda waxaa ka soo qayb gashay Nasra Ibrahim oo ah gabar u tartamaysa kursiga xildhibaannimo ee dalka Kenya ee magaalada Wajeer. qaar ka mid ah oo maadaasha ka hadlayna hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan: ra'iisul wasaaraha waa soo dhaweynaa aad iyo aad ayaan soo dhaweynaa sidii Soomaalidu kalsoonida ay ku siisay ayaan ku siinay jaaliyadda South Africa haddaan nahay. waxaan kuwa dadaalmaynaa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan aad soo dhisto dowlad wasiiro sharaf leh oo tayo leh oo ummadda Soomaaliyeed ay u riyaaqaan. waxaan kaloo kuwa dadaalmaynaa waxaan ka sugaynaa Soomaali heshiis waan soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay ilaahay ha kugu martay xilka lagu dhiibay, ha kugu gargaaro, garab ha kugu siiyo, noqo midkay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ay soo dhaweeyeen sidii kuu soo dhaweeyeen adiguna u soo dhaweey. siyaasadda mid kor lagu dhisana ama siyaasad lagu janagalayo haddii ilaahay raal ka dhigo. marka ra'iisul wasaaraha aadan uga balyan ilaahay jannada ku kaso, waxaa jannada ku kasban leedna waan kaa sugan haddii ilaahay raal ka dhigo insha Allah. wixii ilaahay ugu soo dhiibay ummadda Soomaaliyeed, haddaa shacabka Soomaaliyeed tihiin waxaa laga rabaa duco ilaa u duceysaan ra'iisul wasaarahan. waxaa kaloo u hambalyaynayaa Prime Minister Mudane Professor Xamse Cabdi Barre. waxaan leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ilaahay ha ku garab galo howsha ay wadaan, waa howl aad u weyn. waxaan ilaahay uga baryaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada imaan doona inuu ilaahay u fududeeyo. labo, waxaan dadka Soomaaliyeed ay waajibaadkoodu tahay duco kaliya wax ma taraysa in lagu taageero. saddex, qodobka ugu dambeeya oo rabo inaan taabto waxay tahay caaway waxaan maraynaa maxaliyada 5 saac habeenimo ama 11 PM. banaanka waxaa ka jira qabow aad u xun. ilaa caawaan halkaan joognay dadka intaas tirada la eg oo dhalinyarada ayaa xafladaas u soo baxay. waa maxay waxa aad rabto dawladda aad u dabaaldegayso oo soo dhaweynayso inay ama noqoto ama aad ka dheerto? magacaygu waa Cabdiraxmaan Gaarane. waxaan ku hadlayaa guddiga magaca qabanqaabada ee xafladan caawa inoo soo gabagabowday ee ah xafladda soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre iyo xafladda dabaaldegga 1 Luulyo. alxamdulillah ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqatan xafladii ra'iisul wasaaraha. waxaan leenahay ra'iisul wasaare marka hore ku soo dhawow dadkaagii reer Koonfur Afrika oo si qurux badan oo aad iyo aad u qurux badan xaflad aan la arag la maqal dadkii ka horeeyay aan loo dhigin ayaa lagu dhigay. waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha inay qabtaan shaqo fiican oo ilaahay la garab galo dhammaantooda. waan u mahadcelinayaa community Johannesburg dhammaanteeda. waana mahadsantihiin. Cabdirashiid Xuseen Karash, raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, Koonfur Afrika, Johannesburg. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12
GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha